waa qaybta 16aad sheekada Cavalieri oo si taxane ah looga daawanayo janalka aan YouTube-ka ku leenahay waayo arag. Haddii aad ku cusubtaa waanu ku soo dhaweynaynaa, asxaabtii hore ula socotayna aad bay u mahadsan yihiin. Waxay qaybta hore sheekada inoo maraysay Caaliye aabaheed oo soo wacay Axmed, sheekadii oo inoo sii socotana ka bogasho wacan. Waan ka qabtay oo waxaan bilownay salaan iyo iswaraysi ku saabsan in gabadhiisa xiriir inaga dhexeeyo. Su'aalo dhowr ah kadib ayuu i weydiiyey su'aashan oo hankaygii dishay, riyadaydii burburisay, mooraalkaygiina dilaacisay oo ahayd sida tan: adeer maxaad camal oo qabataa? Waxaan ku dhahay, adeer waxaan ahay Cavalieri ku kalsoon kartidiisa. Wuxuu igu yidhi, adeer rag baa tahay oo shaqayso, laakiin iga raali noqo, gabadhayda kuma aamini karo nin iska maskiin ah. Waxaan rabaa inay ku noolaato nolol heer sare ah, marka iska ilow gabadhan, mar dhowna guurkeeda ayaan diyaarin rabaa. Hadalkiisa ayaa walaac fara badan igu abuuray oo xitaa Jaanis aan kula sii hadlo ma uusan isiin. Waxaan dareemay wadna garaac saa'id ah, wareer badan, iyo inuu dhulkaba iila muuqday inuu ila wareeganayo. Adduunyadii ayaa igu soo yaraatay, waxaanba dareemayaa in maskaxdaydu ay xadka ka baxday oo isku dhex yaacday. Ma waashay mise weli waxbaa igu dambeeya, ma kala garan karo. Waxaan dareemayaa lalabo oo wax kasta laba ayay iila muuqdaan. Wareerka iyo hayadartii, waxaan tallaabo u soo qaaday dhanka jaranjarada si aan caawimaad uga helo dadka hoos jooga. Markii aan jaranjarta cagta soo saaray ayaan matag afka furtay. Waxaaba iigu wardambaysay aniga oo jaranjarada ka sii faniinaya. Iminkana waxaan jiifaa sariirta isbitaalka oo madaxa gees baa i tolan, jilbuhuna waa ay fiiqfiiqan yihiin. Waxaasoo dhan waxaa iiga sii xanuun badan dhaawaca qalbigayga ku yaallo. 2 maalin ayaan isbitaalka ku jiray, kadib ayaa guriga la ii qaaday. Maamulkana wuxuu i siiyey 1 asbuuc oo nasiino ah, inkastoo uusan ogeyn dhaawacan waxa sababay iyo boogta qalbigayga ku taallo. Waxay ii ahayd isbuucii ugu xumaa ee noloshayda soo mara. Weliba waxaan si quus la'aana u wacayay lambarka Caaliya oo dansanaa. Saacad kasta waxaan rajo ka qabay inay shidi doonto, xitaa waan wacay lambarka aabaheed, isagana waa uu dansanaa. 5 maalmood kadib waxaa ii dhacay lambarka Caaliya. Waan farxay oo fallaare aan arkay ayaa iga fuqay. Wuxuu dhacaba waxaa iga qabatay ruux dumar ah. Su'aashii ugu horreysay aan weydiiyey waxay ahayd, aaway Caaliya, sidee tahayna? Waxay iigu jawaabtay, waa ay nabad qabtaa oo arooskeeda ayaa shalay dhacay. Hadal kale ayay sii sheegaysay, laakiin halka ayaaba hadalkeedu iigu wardambaysay. Alla ciil badanaa, ilintayda iyo dhididkayguba si isku mid ah ayay dharkayga u rushaynayaan. Waxaan ku fekeray inaanba naftoo idil isdhaafiyo. Ma sun baan cabaa mise xarig ayaan isku ceejiyaa? Maya, ee bareeska korontada ayaan faraha gashanayaa. Markii dambe aniga oo dhan waan shoogay oo hadal iyo dhaqaaqba waa layga waayay. Oo waxaa lay duray cirbado badan oo hurdo iyo kuwo xanuun baabi'in isugu jira. Markii dambe ayaan soo roonaaday. Waxaan bilaabay quus iyo inaan ka niyad jabo jacaylkii aan u qabay oo aan ka aamin baxay. Waxaan naftayda u sheegay inaanan awoodi karayn inaan calaf ka celiyo, oo caanuhuna aanan naaskii laga lisay lagu celin karin, ilintuna ishaydii ku noqon karin. Sidaa darteed wax waliba ay qadar ku dhaceen oo aanan aniga iyo ayadaba midna aanan qalad ku lahayn. Laakiin qalbigaygu waan ka kari waayay ka sabridda qoftuu jeclaa, ka sabridda naxariistuu uga bartay, ka sabridda wehelkii uu dugsan jiray. Halhayskuna waxa uu noqday ereyada tan: cakuye noloshu gaabana, kolkaad garabkaagiyo ka weydo geenyadaad jeclayd, qalbigaaguna uu gabayn inuu goob kugu yiraa. Gacalkaygu go'i maayo, kumeeyay geenyadaydii,
geedkeed ku dhuumatay aan ku soo goobae. Waa dhextaal kooban. Waxaan codsan lahaa haddii aad la kulantaan dadkan camal inaad wax ka iibsataan, waayo waxay keliya ka fikirayaan quutaliyoonkooda maalintaas, lagana yaabee carruur iyo waayeel baa ku tiirsan shilimaadka yaryar ee miiskaas ka soo xarooda. Caawiya masaakiinta. Sheekadina saaxiibayaal ha inoo sii socoto. Maalmo kadib waxaan dib ugu soo laabtay shaqadeydii aniga oo weli la iga dareemayo moraal dilaaca. Aaway wiilkii farxadda badnaa, aaway wiilkii dulqaadka badnaa, aaway wiilkii dhoola caddayn jiray markii la xumeeyo. Wax weliba waa ay isbeddeleen. Waxaan subax walba u soo kallihi jiray shaqadayda oo marba marka ka dambaysa ay xaaladaydu isa soo taraysay oo aan caadigaygii hore ku soo laabanayay. Laakiin waxaan necbaystay xiriir jacayl iyo wixii sheegaba, oo dumarka oo dhan ayaan iska ilaalin jiray inaan wax naxariis dheer ah inaan u sameeyo, oo gabdhaha qaar ayaa igu tilmaami jiray inaan ahay ruux aan asxaan iyo naxariis midna aanan aqoon. Waayuhu wuxuu isrogrogaba, hadda waxaan ahay mid qoyskiisa la nool oo farxadna kula nool. Laakiin markay igu soo qaadaan arrimo guur ayaan ka caroodaa. Hadda waxaa laba jibaarsaday muddada aan hoteelka ka shaqaynayo. Berina waxaa inoo jirto xafladdii sanadlaha ee shaqaalaha lagu abaalmarin jiray. Subaxan aad ayaan u soo labistay, waxaana meesha isugu imaatay marti sharaf aad u badan oo xafladda lagu casuumay. Khudbado badan ayaa la jeediyey oo dhiirigelin ah. Waxaa la soo gaaray abaalmarinta 3 shaqaale ee ugu hawsha badnaa sanadkii idlaaday. Waxaa masraxa laga wacay 3 qof oo uu magacayga ka mid yahay, laakiin khiyaali ayay ila noqotay oo intaan yara qoslay baan waxaan is iri, waa dhagahaada ee adiga ma aha. Mar kale ayaa lagu celiyey magacayga oo waxaa la raaciyey hadduu ina maqlay fadlan masraxa ha yimaado. Waa waxaan rumaysan waayey oo kadis ayay igu noqotay inaan noqday shaqaalaha ugu wanaagsan ee sanadka oo aan kowga uga soo baxay. Halkii ayaana sacab geeska gees isqabsaday. Maalintaa waxaa si rasmi ah u soo noqday farxaddii iga luntay qayb ka mid ah, waxaana maalintaa oo dhan qof kasta igu hambalyeysay guusha aan ku tallaabsaday. Cid waliba waa ay kula qoslaysaa marka aad guul gaadho, laakiin cidna kula ooyi mayso markay dhibtu ku asiibto. Kaliya waxay kuu sheegayaan inay ka xun yihiin waxa ku soo gaaray. La soco qaybaha kale. Like-ta iyo share-tana badiya oo dhiirigelin bay nooga dhigan yihiin. Sheekadana maanta halkaa ha inoo joogto.